كورن دونا تراويحنا وعبادة رمضان تلقودنا أيوه مركادات كقار كود بالغيا وأنا قلت كفهمان استاد درادد قفك عبادة وجودنا أي علم جيدين وفهمه هو مهم تبني قضب أيان وحكي شيء إن شاء الله قضب كأهر يا وحوي حكم هذه العبادة عبادة حكم كذا مفرل با مسوى سنة ولا جاي بعدك قاركودين يفرلوها يستان لكن عبادة تراويح الصلاة الله يرضى هو سنة سنة معني سوى حوي قفك لي ما ده أجر بدن بهليا فرل كنوى وكويسا قفك كتجانا الله عذاب مايو هدانو الضفير سنين قلب كلبادو حوي مشروعية هذه العبادة عبادة نيدا قرتي للشدية والرئيسي ولماذا وحي الله واحد دليلها المسجد كان لقوت كان كرا جمعنا لقوت كان كرا رسولك صلى الله عليه وسلم حديث كيس الصحيح بخاري مسلم كسغا من حديث عائشة وحي الله النبي وهذين بكت كذا مسجد كان المسجد النبوي في المدينة ساجد كيس المدينة markaasaa lagu xidhayo dadka qaar kood baa soo helay isagoo tukanaya muu iclaaminin isagu laakiin isagoo iska tukanaya ayaa lagu xidhay habeenkii labaadna dadku aad buu u soo batay habeenkii saddexaadna way ka sii bateen dadku masuu u soo bixin nebigu oo gurigiisu iskaga tukaday markii dambena salaadii subax buu ka wacyigeliyo wuxuu waxaan u maqnaaday waan idin arkayay in aad u soo ururteene in la idinku waajibiyay ayaan ka baqday markaan arkay sida u danaynaysaan salaada marka isagoo dadka u danaynaya ayuu ka maqnaaday nabigu sallallahu alayhi wasallam marka halka waxa laga fahmay in salaadan jamac lagu tukan karo masjidka dhexdiisa qodobka saddexaad waxa weeye salaadan cadadkeeda iyo tirada la tukanayo Aisha ayaa ka sheekaysay arintaasoo حديث البخاري ومسلم كسوغان أيا وحي لهذا النبي عليه الصلاة والسلام وحو تكنشر رمضان يبي لها كلبا طبعا رقعضات يمر وترقا يلا رقعضات سوحة كوريا marka toban buu tukanaya markii wadrigu raacinaya kadibna markuu waagu bariyana labadii subaxa ka horeeyay ayuu tukanaya waxa intaasi raacsanay Umar ibn Khattab Allah ka raali noqdo waqtigu umada madaxda u ahaa madaxweynaha muslimiinta u ahaa ayuu jamici ururiyay si gaar ah loogu tukan jiray masaajidka nabiga dhexdiisa marka uu ururiyo asxaabigu Ubay ibn Ka'b la oranayay ayuu Ubay oo tuuki dadka oo jamaca ku tuki markaas jamici ayaa lagu tukaday salaadiina wuxuu ka dhigay 20 iyo saddexdii witriga 3 marka labada dariiqo markay culimadu ka hadlayaan waxa uu soo horeeyo ka hadlay rag in badan baa ka hadlay laakiin ibn Taymiyyah rahimahullah marka arinta ka hadlaya waxa uu leeyahay qofku haduu labada siyoodba ku tukado wax dhiba malaha qofka maleeya cadadka تراويح أن إلهنا عدد كسلاد هذينكي لتكنيو بشا رمضان إن ترى معينا تهي وأن لا فنكرين فقد أخطأ وقف يبولي مركا قف عدد كوان السيادين كراوانا نقصامين كراين توكره لبا كدبنا ملوتريه ولا قصة ختمه جمهور العلماء السلاسة وبديهين صلاة النبي وحده كذا كوبية طبعا سدا عائشة شيكتي لكن in laga badin karaana wax ma aha bidca bay leeyihiin sida asxaabtuba ay isku waafaqeen ridwaanullaahi calayhim qodobka afraad salaada iyada macal imaam lagu tukado oo imaamka lala tukada fadli bay leedahay macnaheedu waxa weeye sida nabigu guriga ugu tukaday guriga waad ku tukan kartaa waliba waqtigan cabsida laga qabo ururka dadka iyo xanuunkan guriga uu iskaga tukan karaa qofku haddii imaamka lala tukado oo wax dhibihi aanay jirinna marka iyadana fadli dheeraad uu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam
من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة حديث صحيحة ترمذي ورين يوحو شيغيا قفك الصلاة لا تكده هبينك إمامك إلا لما يسته wuxuu ka dhigan yahay qof habeenkii oo dhan cibaado u taagnaayo kale ayaa ilaahay u qoraya marka fadligaas ay leedahay haduu imaamka la tukado kayfiyada salaadan loo tukanaya waxa weeyaan laba waa loo tukan karaa afar lix bal ayaa loo tukan karaa oo la isu raacin karaa laakiin midka witriga ah waa inuu u dambeeyo taasi baa markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam faraysaynu ka arki doono qodobka lixaad waxa weeye maxaa la akhriyayaa salaadan dhexdeeda qur-aanka nooc gaar ah oo la akhriyayo lagu eegaan karaa miyuu jiraa mise tiro cayiman may ka soo aroorin nabiga calayhi salaatu wasalaam tiro cayiman oo rasuulku akhriyay qur-aanka kariimka ah sidaa daraaddeed culimmadu waxa ay leeyihiin cid walba wixii u sahlanaadun bay akhriyi doonaan markaa salafka qaarkood waxay ku dhamayn jireen sidaasaa ibnu yaziid asxaabiga daayartaa uu tilmaamayo khatma bay samayn jireen oo soddonkay ku dhamayn jireen ramadaanta habeenkiiba jus qolyaha qaarkood 10 jis bay akhriyi jireen qaarkood habeenkii waxay akhriyi jireen macnaa saddexdii habeen mar bay ku dhamayn jireen qolo iyo awoodeed jamaca had iyo jeer tukanaya inta uu karayo isla garta wey waxaan soo wanaagsanayn faas in loo tukado sida dadka qaarkood aynu aragno qul huwallaha ku tukada iyada quraanka ilaahay badan yahay degdeg sida ay u raadinayaan qul huwallahum bay ku tukanayaan salaadiina aad baa loo eriyayaa taasi waxay luminaysaa macnihii salaada iyo khushuucdii qad aflaha almu'minuuna alladhiina hum fii salaatihim khaashicuun ilaahay markuu ammaanaya awliyadiisa waxa uu waa dadka marka ay salaada tukanayaan khushuucsan marka khushuucdii baa lumaysa way dhacdaa dadka qaarkoodna wadamada qaarkood inay kaba sii fududeeyaan oo مثلا والشمس oo kale deentay oo ragcado lagu tukado washamsi waduhaha waa ragcadda labaad wal qamari idha talaha waa ragcad saasun loo wado marka way macna beeraysa salaadi ka inta la isla garto oo si degan loo akhriyo ayaa aad u muhiim qodobka toddobaad waxa weeye witriga in loo dambaysiiyo nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa waxa uu ku yidhi awtiruu ya ahla alqur'aan fa ina allaha witrun yuxibu lwitr dadka qur-aanka ehelka u haw ee qur-aanka lagu soo dejiye loogu talagalay ku camal falaya ku cibaadaysanayo witriga la yimaada oo salaadiina midhka u dambeeya witri ka dhiga ijcaluu aakhira salaatikum bileyli witra xadiidkii saxiixayn ku ah salaada habeenkii tukanaysaan midh u dambaysiiya qodobka sideedaad waxa weeye hadday dhacdaba qofkii inuu witrigii horreysiiyo doonana marka dambe salaadii inuu kordhiyo maxaa u bannaan dalqubnu caliyin xadiidkiisaa saxiixii waxa uu sheegayaa laa witraani fii leyli kaas xadiidkaasaa ka jawaabay laba witri ma jiraan habeenkii mar haddaad witrigii qadintay marka labaadaad doonto laba ragcadood inaad tukato wakhtigaa suxuurta witrigii baanad soo celinayn wakti mucayana miyay leedahay oo salaadani lagu joojinayo haa salaada habeenkii la tukanayo salaatuleylka la idhaahdo waxaa lagu tukanayaa waxaa la tukan karaa ilaa intaan waagu bariyin sida uu sheegaya xadiidka muslim ku sugan min xadiidi abi saciid awtiruu qabla subx subaxa ka hor awtiruu qabla an tusbixuu intaan waagu idiin baryin ka hor salaada witriga tukada buu nabigu calayhi salaatu wasalaam man adraka subxa walam yuutir falaa witra lahu xadiid kaloo saxiixu isaguna ahaa qofka aan witrigii tukanin ilaa intii waagu dilaacayay witri ma tukan karayo markaa salaada wakhtigeedu bacda shaay buu ka bilaabmay ilaa wuxuu soconayaa intaan waagu dilaacina aadaanka dambe aan lagu yeedhanina aan la adaamin salaada iyada qalada fahmin kuma ega kaliya salaada habeenkii taraawiix waa la yidhaahdaa waxaa tarwiix lagu magacaabay salafku markay afar tukadaanba way yaro nasan jireen qaarkood qaarna waxay dawaafi jireen kacbada oo salaada iyo dawaafka ayay israacin jireen marka tarwiixa saas rawaxa yurawixu tarwiixan waa masdaru rawaxa tarwiixu waa nafisaada lagu dhex darayay
ragcadaha dhexdooda marka afar la tukadaba ayaa ay ugu dareen ayaa magaca loogu tilmaamay laakiin waa salaatuleyl iyo qiyaamuleyl marka kuma eega salaada habeenkii la tukada ramadaan keliya sida dadka qaarkood ay u fahmeen laakiin way soconaysaa inta uu qofka cimrigiisu jiraba waa cibaado habeenkii lagu camiro lagana faa'iidaysto aadna fadligeedu u badan yahay nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku tilmaamay xadiid bukhaari iyo muslim ku sugan cabdilaahi buu la hadlayey asxaabigaa la yidhaahdo cabdilaahi ayaa uu la hadlayey ibn camr bn caas markaa waxa uhi ya cabdallah laa takun midla fulani kaana yaquumu bileyli uma taraka calaa macna alxadiid cabdilaahi oo hebel oo kale ha noqonin habeenkiibuu cibaadaysan jiro uu iska daayey marka aad u hadayn sidaad ramadaan u cibaadaysanayso bilaha kalena uwad oo ha joogtayn ila ilaahay la caabudaya ramadaan bilihii kalena waa la caabudayaa marka cibaadadaas sidaas u soconayaa wakhtigeeduna oo ramadaan wuxuuna la doonayaa inaan u jabsanaano oo aynu cibaadadii la qabsanno oo wakhtigeennii ku buuxino laakiin wakhtiga kalena waa ku camiraynaa waa sii wadaynaa tobaneeyada nuqdadood ayaynu taraawiixda ka odhan lahayn marka qofku hadduu masjidka yimaadana waa ku tukan karaa oo duruuf ka hor joogsanaysa aanay jirin hadduu gurigiisa joogo oo xaaskiisa iyo ciyaalkiisa imaam ugu noqdu tukiyana salaatuleylkii waa tukan karaa taraawiixdii oo xagga horeana waa tukan karaa intubana way iska bannaan tahay qunuudkana waa la raacinayaa madhabu waa isku khilaafsan yihiin oo qolo waxay leeyihiin qaybta dambe ramadaanta weeye qolona waxay leeyihin waa lagu wada caam yeelayaa witrigaasaa qur-aanka ayaa qunuudka lagu akhriyayaa iyadoo loo ducaynayo ehelka asxaabta iyo ummadda islaamkaba aakhiriya adduunkana wixii khayra lagu ducaysanayo wahada ma aquluhu waastaqfiru اllah wasalaamu calaykum waraxmat اllaahi wabarakaatu